joogta xildhibaanada qaranka ee halkan jooga dadweynaha taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ah saxaafadda iyo dhammaan dadka halkan jooga waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh marka xigta waxaan hambalyaynayaa oo halkan ka hambalyaynayaa dhammaan taageerayaashii iyo dadweynihii reer Somaliland ee isbeddelka u codeeyey ee codkooda siiyey axsaabta mucaaradka ah waxaan si guud ugu hambalyaynayaa dadweynaha reer Somaliland meelay joogaanba oo si nabadgelyo ah u codeeyey muddo 2 biloodana foolinayey inuu dhismo shirgudoonkii golaha wakiiladu oo hawl badan iyo tacab badan ay ka soo mareen waxaan hambalyaynayaa xubnihii golaha wakiilada ee saaka u codeeyey shirgudoonka cusub anigana iigu doortay guddoomiye oo aan leeyahay kuwa ii codeeyey iyo kuwa iga codeeyey waa golo qura oo magac qura leh oo ah golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Somaliland waanan hambalyaynayaa dhammaantood inta ay la egyihiin waxaan rajaynayaa in insha allahu tacaala wakhti badan oo inaga lumay muddadaa 2 bilood ee isriixriixu jiray aynu u gudi doonno una abaalgudi doonno dadweynihii muddada dheer milicda iyo bacadka inoo taagnaa dadweynihii inaga dhur sugayey inaynu isbeddelkeenno insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa idamka ilaahay inuu noqon doono golahan maanta odayga la iiga dhigay gole dalka wax ku soo kordhiya hadday noqoto hawlihiisa gaarka ah ee loo igmaday iyo hadday noqoto hawlaha iyo qabyooyinka badan ee qaran ee ina hor yaalla inuu qaybtiisa kaga beegan insha allahu ka qaato waxaan rajaynayaa inuu golahan noqon doono gurmad qaran oo qaranka u gurman doono idamka ilaahay waxaan rajaynayaa muddadaa 2 bilood oo wakhti badan inaga lumay oo hadday xukuumad noqoto iyo hadday xisbiyo noqoto iyo hadday golayaal noqoto midnaba aanay ka shaqaynin dantii caamka ahayd inteedii badnayd ee lagaga mashquulay hawlihii doorashada inay soo kabi doonaan ama gudi doonaan wakhti badanna gelin doonaan sidii danta caamka ah loogu jeesan lahaa sidii loo midayn lahaa dadweynihii ay kala irdhaysay xanaftii doorashadu ayna uga dambaysay xanaftii kale ee shirguddoonka waan rajaynayo hadday noqoto xisbiyada qaranka oo isku mid ah dantooduna mid tahay ayna tahay inay dalka iyo dadka u shaqeeyaan inaynu dib dadkeennii u ururin doonno haddii ilaahay subxana wa tacaala uu qadaro waxaan rajaynayaa in golihii aan odayga u ahaa ee la ii doortay aan ururin doono midayn doono habayn doono insha allahu tacaala wax alla wax kasta oo qabyo oo ka jiray golahana aan u gacan bannaanaan doono waxaan rajaynaya in wakhti badan aanu gelinno haddii ilaahay raalli ka noqdo in dadkaanna soo doortay ee tabashadoodu weyn tahay oo aan hubo inaanan dabooli karin baahiyaha yaalla ee ay dareemayaan iyo filashooyinkooda ah wax xaqna loogu leeyahay iyo waxaanna loogu lahaynba inaanan dabooli karin waan hubaa laakiin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaannu dadaal badan samayn doonno waxaan weyddiisanaynaa dhammaan bulshaweyntiina soo dooratay annagoo uga mahadnaqayna doorashadii iyo isbeddelkii ay u codeeyeen inay noogu duceeyaan insha allahu tacaala in ilaahay nagu garab galo waxaannu weyddiisanaynaa madaxda axsaabta qaranka iyo madaxweynaha iyo xukuumaddiisuba inay golaha kala shaqeeyaan inuu sidii u gudan lahaa xilalkiisa iyo waajibaadkiisa haddii ilaahay idmo waxaannu ballan qaadaynaa golo ahaan inuu noqon doono golahani golo dhammaystira golayaasha kale ee qaranka ee dalku leeyahay ayna aanuna ku dadaali doonno sidii aannu isugu wadi lahayn dadka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa guddoomiyuhu yidhi waxaan ku kabayaa hawl badan baynu soo gallay arrinkan hawl iyo dadaal badan ayaannu ka soo gallay waxaan u mahadnaqayaa xildhibaannadii wakhtigana siiyey ee naga oggolaaday inaannu kulansiinno oo isu keenno oo wakhti badan ka qaadno oo tale iyo tilmaanba wixii aannu siin karro aannu siinno oo inay naga soo ajiibay oo oggolaaday inay arday ku noqdaan oonu casharra siinno iyagoo rag waaweynoo la soo doortaya waxaa kaloon u mahadnaqayaa maanta hawshaa aynu soo gebagabaynay way murkacan lahayd waxay ku sigatay inay murkacato badheedh ka yimi xagga xukuumadda oo indhala'aana
oo laynu ku qasbayey nin musharaxii inuu guddoomiyo oo isagoo musharaxa ninkii la tartamaya yidhaahdo waan kaa helay waxaase ilaahay mahadiya labadii oday ee qaranka ugu waaweynaa inay go'aan adag qaateen Saleebaan Maxamuud Aadan oo guddoomiyaha golaha guurtida ah labada golana odaygoodii ah baarlamaanku waa isaga u odaya iyo guddoomiyaha maxkamadda sare go'aankii ay qaateen ee lagu badbaadinayay hawsha oonu ka baqsanayn inay murkacato oo halkaa qalalaasa ka dhaco oo shirkaasi halkaa ku burburo labadaa nin baa abaalkeeda leh oo badbaadiyey waxaa kaloo abaalkeeda leh labadii nin ee tartamayey oo oggolaaday dhexdhexaadintoodii iyo inay garnaq noqdaan labada nin oo oggolaadayna abaal bay leeyihiin anigu intaasaan ku kabayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta ilaahay mahadle subxaana wataala ilaahay keligii mahadle waxaanu mahadnaqnaanaa mulkiyaha hoteelkan mustafa oo maanta ina sharfo oo inoo sameeyey casuumaddana ilaahay meheradiisa ha u barakeeyo ilaahay mid xalaal ka gurta inaga siyaar saaqad xalaalah ilaahay ka seehna siiyo waanu mahadsan yahay horta guushan maanta waa guul Soomaalidu soo hoyatay waa dalkeena wanaagiisa weeye arrintan cid gaar u leh guushan ma jirto waa guul national waxaana aad iyo ugu mahadnaqaynaa aan ugu bishaaraynaa dad codka bixiyey inay si ku bixiyeen iyo niyadoodii shirgudoonkiina si ku dhamaaday ayaa ilaahay maxamed oonay ka hawaabin xildhibaanadii la soo doortay wixii loo doortay ee lagu codeeyey inuu shirgudoonkiina wadadii maray ilaahay mahadwey subxaanahu wa tacaala waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaynu waqtigan wax ka badan isku helno laakiin hadda waxaan leenahay hambalyaanaynaa intii ka shaqaysay suurtagalka inay maanta fadhiga suurtagalo oo caadadii ahayd Soomaaliland weligeedba aan iska rafanay saacado dambaysa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala makhrajna siiya ilaahay waa inta ilaahay dadka dheernahay marka waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo hawl baa loo dhiibay xil baa loo dhiibay amaana loo dhiibay ilaahay ku asturay subxaanahu wa tacaala ilaahay ku asturay وين أدعينا وي آخره ولا سويدينية كيف حكم طالما يصلح حكمتي يا لوني هذين آخره حصلنا هاي ما بين له حنان إلهي كوي خاتمه وناكسون إلى حق تصل إلهي نجيل سبحانه وتعالى إلهي دلك هنا مد وناكسون ولوسو هاجرو ومد استعلا وناك اسفرتا حمان تسكنه إلهي نجيله دنيرت هو أركستان ما أنتي ناس بقولك بس عشان دنيرتي مستقبل كينو كم حنا قبيل مستقبل كينو حكوية عدالة الحق أي كحنية إلهي عدالة هنا بر سبحانه وتعالى كبح قبيلة دواهية قبيلة وطالك هنا دكتي وين أدرب ما أنت كبحناه يا عطبتي ما أنت يا عطبتي برخد بوا عطبتي يا وعلامة وناكسن وعلامة وناكسن وضل عصير هاي إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى ومهسنتين ومهسنين إلهي يكون أسطره صدق حلمان محمد dhammaan madaxda iyo shirgudoonkii maanta la doortay oo uu hogaaminayo Cabdirasaaq madaxda xisbiyada labada gudoomiye saxaafadda xildhibaanada dadweynaha aad iyo aad baan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin taariikhi ah hawl muddo socotay laga soo bilaabo doorashadii ayaa maanta soo gaadhay meeshii aan la rabnay laakiin waa hawl bilaabantay haddana oo xildhibaanadaasi ummaddu soo dooratay ee tacabka intaa leeg galay waxaan ka rajaynaynaa shirgudoonka Cabdirasaaq hogaaminayo in ilaahay fududeeyo ha loo duceeyo ummadda Soomaaliland meel kasta joogtaba ha u duceeyaan haddaan ilaahay ku astuurin waxba inoo soo saari maayaane maanta mar baan yaabnay waan cabsoonnay doorashadii shirgudoonka oo waxooga aan dareennay dawladdu inay dabada ka riixasay dhinac kala waday haddana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin si fiican bay ku dhammaatay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa Soomaaliland baa maanta guulaysatay guushaasi inay noqoto calaamad taariikhda gasha oo ummadda Soomaaliland xasuusato oo aan ka korno waxyaalaha dib inoo dhigayay waxaan rajaynaynaa Cabdirasaaq iyo shirgudoonkiisa maanta waa hambalyo marka hore waan hambalyeynanaa xildhibaanadii doortay iyo intaan dooranbana
waxaan leenahay allah kugu asturo cabdirasaaq adiya shirdoonkaaga inaad isku urursood hoggaamiso ummadda Somalilandna waxaan rajaynaynaa inaydin baal cusub oo taariikhiya inaad u gashaan oo aad wax u qabataan tacab yari ma gelin soo doorashadiinnii waxbaa laydinka rajaynayaa iskama idaan imanunuun waxaan rajaynaynaa in ilaahay idinku asturo midhihiina ilaahay ummadda uga dhigo midho dhandhama oo waxtara oo dawo leh waxaan u mahadnaqayaa mulkiilaha hoteelka Mustafe oo maanta qadadaa iyo sharaftaa iskugu keenay ilaahay meheradiisa ha u barakeeyo ilaahay meheradiisa ha u barakeeyo waxaan hambalyaynayaa oo bogaadinayaa shirguddoonka cusub ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland cabdirasaaq khaliif giire iyo cali xaamid jibriil waxaa ilaahay uga baryayaa inuu xilka u fududeeyo maanta waxaa qabsoomay oo rumoobay rabitaankii shacbiga Somaliland shacbigu waxay u codeeyeen isbeddel waxaana yimi isbeddelkii ilaahayna mid khayr qaba ha inooga dhigo waxaa leeyahay shacbiga reer Somaliland riyadaa rumowday insha allahu waa ka dhalan doona isbeddelkii aad doonayseen waxaynu u baahannahay baarlamaan iyo xukuumad isjeegareeya oo isdabagala markaa baarlamaankani sidaa idinku codka ku siiseen wuxuu noqon doonaa mid waajibaadkiisa guta haddii ilaahay yidhaahdo waxaan hambalyaynayaa dhammaan xildhibaannada cusub ee maanta la dhaariyey waxaan si gaara u hambalyaynayaa xildhibaan guruji oo maanta ahaa game changerka iyo xildhibaan meecaad waxaan kaloo si gaara ugu mahadnaqayaa xildhibaan maydhane